markaas su-aasha aan weydiiyey waxay tahay sidee ku ogaad hore ma isku baartay kule maye indhahay horuligii hore iskuma baarin laakiin indhaha way cunaya xasaasiyaday leeyihiin micnaha ereyga cuncunka iyo xasaasiyadda ayaa laga dhigay hal mid taasoo marka qaar ku abuurto bukaanada inay ku wareeraan sidoo kale dhakhaatiirtana ay ku wareeriyaan laftirkooda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta kusoo dhawaada muuqaal cusub. maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay qaladaad inta badan bukaanada ay galaan midaas oo aad ay ugu wareeraan taasoo ah badanaa bukaanada qaba indho qaleelka markay u yimaadaan dhakhtarka indhaha ay weydiiyaan doctor aniga goojooyin aan isticmaalin ma jirto indho qaleelka loo isticmaalo ama marka qaar ereyga isticmaalana ah goojooyinka markaa xasaasiyadda inaan aad u isticmaalo oo weli sideeda aan aho ma taqaanaa indhahayga sida ay cunayaan oo goojooyinka waxba igu soo kordhi karin maxaan sameeyaa. su-aashaas waa su-aasha inta badan ee bukaanada ay weydiiyaan dhakhtarka indhaha taas oo ayaga laftirkooda aad ugu wareersan yihiin bukaanada habkay ugu bixi lahaayeen xaaladda. muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkugu soo gudbiyo 6 qalad oo ay galaan bukaanada taas oon u suurtagelinayn in xaaladdan ama culeyska haysta ay ka baxaan. sidoo kale dhammaadka muuqaalkana waxaan rabaa inaan idinkula wadaago xal ama waxyaabaha qofka loo baahan inuu sameeyo si xaaladdan uu kaga baxo. intaa hore u gadagelin muuqaalka haddii taa markuu horeyso muuqaalan daawad subscribe saar sidoo kale like tan saar haddii hore noogu mid ahayd. qaladka koowaad ay bukaanada ay sameeyaan ah in goojooyin markaa ay farmashiyaha caadi iskaga soo iibsadaan kaas oo markaa u isticmaalaan indho cuncunka sababtoo indho qaleelka badanaa aad buu ugu egyahay calaamadaha uu leeyahay xasaasiyadda taas oo u haysta inay leeyihiin indhaha xasaasiyadda leeyihiin. marka qaar waxyaabaha la yaabo waxay tahay qof ayaa ku imaanaya bukaan ah wuxuu ku leeyahay doctor aniga indhahayga xasaasiyaday leeyihiin markaas su-aasha aan weydiiyey waxay tahay sidee ku ogaad hore ma isku baartay kule maye indhahay horuligii hore iskuma baarin laakiin indhaha way cunaya xasaasiyaday leeyihiin micnaha ereyga cuncunka iyo xasaasiyadda ayaa laga dhigay hal mid taasoo marka qaar ku abuurto bukaanada inay ku wareeraan sidoo kale dhakhaatiirtana ay ku wareeriyaan laftirkooda hadday dhahaan xasaasiyadaan qabaa micnaha meesha ka imaanaysaa in horay qofka uu xasaasiyad loogu soo sheegay taasoo marka qaar keeni karta in isfahmwaa meesha uu ka dhaco. saas ayadoo jirto marka qaar baaritaano ayaa jiro baaritaan muhim waa baaritaan indhaha ah oo markaa diagnose lagu sameeyo xaaladda qofka uu qabo indho qaleelka. haddii xitaa indho qaleel la qabtaa lagu dhaho indho qaleelka laftirkiisa ayaa noocyo kala badan ah stage kala duwan ah goojooyinka markaa amase daawooyinka loo isticmaalayana qof kale uu ka duwnaan karaa. sidaa awgeed inta badan qaladka ugu badan ee galana ah isticmaal goojadan ku habbooneen taas oo markaa xataa laga yaabo inay kaga sii darto uu qofkana uu niyad ka raacdo. qaladka labaad ayaa qofku inuu leeyahay xaalad caafimaad oo keeni karto indho barar ama waxyaabo keeni karo in indho qaleelka ay kusii ziyaadiyaan oo la xiriirto xaalad caafimaad guud oo qofka u qarsan laakiin waxaa dhacda qofka bukaanka inuun horey baaritaan isku sameyn ama qof xaaladiisa ka warhaya inuu ahayn taasaa keenayso si walba xataa dhakhaatiirta indhaha ay u siiyaan goojooyin ama managementii ugu habboon xaalado markaa qofka uu jirkiisa uu leeyahay taas oon u suurtagelinayna daawooyinka markaa la siinayo in halka ugu habboonaan la gaarsiin karin. qaladka saddexaad ay sameeyaan bukaanada ee ah in ay u isticmaalaan shaashadaha hab aan habbooneyn markaan leeyahay waxay tahay in ilbiriqsigooda aad u yaryahay oo qofka laga yaabo inuu aad u isticmaalayo saacado badan oo isticmaalaya shaashadaha haddee tahay mobil computer ama t v taas oo suurtagelinaya marka daawooyinka marka xataa la siinaya hadduu u taga waayo dhakhtar indho in meesha la rabo aan la gaarsiin. qaladka kale oo saddexaad oo qofka sameeya waxay tahay marka qaar waxaa jira xaalado la xiriira baararka indhaha taas oon qofka uun ku dadaala inuu mar walba nadiifiyo baararka indhaha. dadka qaar ayaa jiro oo mataqaanaa ama shalaaziyoon ama waxyaabo finan leh taas oo muhiim tahay qofka in agabyo loogu talagalaa jira qofka inuu ku nadiifiyo marka nadaafadda sida saxda ah uu qofka u nadiifin baararka indhaha xaaladdan markii uu qabana lagama yaabo inuu ka baxo haddii uunan nadaafadda baararka uunan ku dadaalin. qaladka shanaad ayaa ah in daawo walba uu qofka isticmaalo xataa caafimaadkiisa guud hadduu u fiican yahay xitaa
in dumarka weliba aad u adeegsadaan make-upka ama waxyaabaha la mariyo indha kuul haddii markaa ugu yaraato ama lasheska oo indhaha lagu xirto waxyaabahaas oo kale aad u isticmaalayaan taas oo keenaysa mataqaanaa in jugjug meesha joog ay noqoto oo loo baahan yahay inay dhakhtarkooda indhaha kala tashtaan make-upka qaar oo loo baahan yahay inay ka fogaadaan iyo kuwa isticmaali kara laftirkood marka qaar make-upya qaar waa loo ogolaa karaa make-upya qaarna waa mamnuucay ka tahay taas oo ku xiran tahay meesha qofka uu ka isticmaalayo make-upkiisa sababtoo ah dhakhtarka indhaha markuu fiiriyo indhaha xaaladooda uu qanjiraha markaa meibomian gland meelaha qaar wuxuu ku arki karaa qanjiraha markaa u qaabilsan indha qaleelka inay aada ugu difaacaan inay aada damage usoo gaaray markaa dhakhtarka wuxuu kaga saacidi karaa inuu dhaho meelahan oo ishii qofkiisa ugu sheegayo ha u dhaweynin xataa indha kuul haddii ay noqoto ama laashka indhaha lagu xiro meelaha qaar oo kale inuu talooyin uu ka siin karo marka qofku waxaa laga yaabaa inuu make-upka sidoo raba iska isticmaalayo xaaladana uu leeyahay waana qalad inta badan soo laabto oo qofka u suurtagelin inuu xaaladan ka baxo qodobka ugu dambeeya ah qodobka lixaad oo inta badan bulshada Soomaaliya aad ugu badneen laakiin laga yaabo dadka qurbaha jooga in aad u isticmaalaan balish indhaha mise contact lensiga oo saacado badan ayna xiranayaan taasaa keenaysa markaa in oxygenka indhahooda gali lahaa in ay xadido taasoo keenaysa in qaleelka in aad ugu sii darto haddii ay tahay xitaa kuwa garaado loo isticmaalo qurxis xataa inay ay yihiin mar qaar inay kala tashtaan contact lens ama balish indhaha ku habboon inay tahay midka u isticmaalka indha qaleelka ama haddii horey loo soo qoro xitaa ama dhakhtar indhaha usoo jeediyo inuu isticmaali karana in uun saacadihii loogu talagalay in uuna dhaafsiin intaas waxay ahayn qaladaha badanaa ee qofka bukaanka oo xaaladdan indha qaleelka qabo uu galo marka maxaa looga baahan yahay qofka inuu sameeyo haddii uu xaaladdan uu leeyahay midda koowaad aan hore u sheegnay ah in uu adeegsado ama isticmaalo goojooyinka markaa dhakhtarka indhaha uu usoo jeediyey oo saxda ah sababtoo goojo kale way ka duwan tahay qofka kale uu isticmaalaya way kala duwan yihiin midda labaad oo ah in la kaashado dhakhtar indha iyo caafimaadkiisa guud inuu baaritaan guud isku sameeyo oo haddii uu qabo xaalad sida inflammatory diseases oo ah cudur markaa indha bararka ama keeni karo ama indha qaleelka aada ugu ziyaadi karo haddii ay jirto cudurooyin badan jira xataa rheumatismka ka mid ah marka cudurooyinkaas tirada badan inuu qofka u manage gareeyo oo meesha ugu hooseysa uu gaarsiiyo daawooyinkii sida taa ku isticmaalo marka daawooyinka xataa indha qaleelka uu isticmaalayo oo ay ka mid tahay calaamadaha uu dareemaya indha huurka indha cuncunka dhammaan marka meel ayuu gaarsiin karaa haddii uu adeegsado arrintaas sidoo kale waxyaabaha aada ugu saacidi karo waxay tahay inuu qofka uu qaato maaddooyin leh omega 3 inuu cuntooyinka uu qaadanayo ay ku jirto oo marka qaar kalluunka laga heli karo ama supplementi ama kaniiniya markaa laga sameeyo oo qofka dhakhtarka indhaha usoo qori karo taas oo wala marka qaar qofka kale inta xad uu isticmaali karo ay ku kala duwanaan karaan ay ku xiran tahay stageka qofka indha qaleelka uu ka yahay midda saddexaadna waxay tahay inuu shaashadaha sida ugu habboon isticmaalo oo qaanuunka la yiraahdo 2020 oo 20 daqiiqo walbo uu isticmaalayo shaashadaha inuu 20 second meel 20 feet u jirto uu fiiriyo ama nasiimo indhiis inuu siiyo sidoo kale waxyaabo adeegsan kara ah inuu isticmaalo blue filterka oo marka shaashadihiisa uu ku shidayo ama protection muraayad ahaan uu xiran karo qodobka saddexaad ah in uu adeegsado agabka markaa loo adeegsado baararka indhaha in lagu nadiifiyo timahooda shaambaha haddee tahay shaambaha caruurta iyo dhammaan inuu ku dadaalo nadaafadda baararka indhahiisa inuu aada ugu dadaalo qodob kaloo ah in uu make-upka u isticmaalayo qofka in uu xadido xilliga aada ugu kacsan tahay ama haddii uu adeegsado maadooyin kiimiko kale waxay keeni kartaa qofka inay kaga sii darto marka inuu xilliga uu indha cuncunka ama daraaga aada ugu darsan tahay in uu u kaadiyo qodobka ugu dambeeya waa contact lens ama baliisha indhaha in ugu badnaan oo qofka isticmaalo haddii xilliga ku kacsan tahay ugu yaraan 4 saac 3 saac inuu ka badin haddii uu fiican yahay xitaana 6 saac uun ka badin maalinta oo haddii uu garaad ahaan u isticmaalayo glasseskiisa u qaato haddii uu xataa meelo munaasabo aadayana kuwa isqurxintoo kale oo baryo uu ka nasto intaas waxay ah qaladaadka qofka xaaladda indha qaleelka qabo iyo talooyinkii markaa usoo jeedin lahaa intaas ay muuqaalkeenu ku egyahay waxaan idin rajaa caafimaad iyo indhafiyo